dhul sidiisaba waa dhulka xamar jajab iyo caalgaab u dhaxeeyo sidaad sheegaysiin ama la sheegayo dhulkaas anigu sideedaba dhul ma bixin mana siin waxaa la yidhahdaa waxna siismaa la yidhaahdaa waxna waa ku nacfin waxna waa shaqo xilligaas loogu talagalay sideedaba waxaan rabaa runtii aniga waxaan sameeyey warqadayda waa umalaynaa inaad arkayseen wargelinay ahayd wargelin iyo siismana farqigaa u dhexeeyo wargelintuna waxay ahayd in goobaha ay qashin ay dhigaan in la siiyo shirkadda eeko ee xilligaas nadaafadda nagala shaqaynaysa gooba ay qashinka dhigaan kadibna laga sii qaado meelay ayadu leeyihiin iyo meelay ayaga la siinayo iyo meelay ayagu ku nacfinayaan meelay ayagu seerbaan u dhisanayaan iyo midna ma ahayn ayay ahayd weliba dee xilligaasi oo hadda ma aqaan warqadii daraad oo maaragtay afhayeenka uu akhrinayay waxay ahaaday 11 bisha afaraad ayay ahaaday anigu xilka 15 bisha afaraadaan wareejiyey warqadii gudoomiyaha degmada xamar jajab ee la soo xiganaya iyadana waxaa ku qoraaday waxay ahaaday 22 bisha shanaad ayay ahayd marka warqadda tala soo jeedinta gudoomiyaha waa dareemaysaa inay ka dambaysay tayda cidda u tala jeedinayaa waa markaas maamulkii jooga aniguna maba joogaba ayay ahaaday yaa baxshay iyo yaa dhiibay iyo ma la dhiibi karaa iyo waa la dhiibi karaa iyo duq magaalo awoodiisa maxay la agtahay wax dowladda hoose leeda ma bixi karaa iyo meel nadaafad looga ma la raadi karaa iyo waxaasoo idil waa wax kale walaas kama jiro laakiin muhiimaddu waxay ahaaday dhulkaani cidda bixisay oo siisay shirkadda eeka dhulkaasi wuxuu ahay maamulkii iga dambeeyey waxay ahayd marka in la caddeeyo cidda wax bixisay haddii tayda laguma camal falinba lamana cuskan soo ma garan gudoomiyaha hadda cusub waa muday dekreeto soo saar uu ku joojinaya dhulka ahlan wasahlan gudoomiye xaq uu leeyahay inuu joojiyo ilaa oo wixii uu ka hubiyo xaq uu leeyahay laakiin waxay aaday dukumeentiyadan oo la cuskanayo in miiska la soo wada saaro almiino oo midda cidda wax bixisay iyo cidda kale la kala cadeeyo wax la baxshay la cadeeyo qaabka iyo waxay la cadeeyo laakiin mujmalaad moodaa mugdi inuu ku jiro moodaa marka mugdigaas weeyaan waxa culayska keena dadku shakiga galiyay taas ay waxaan rabnaa inaan marka aan ka hadlo